ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa sii dardargeliyay howlihii amniga iyo gargaarka shacabka waxaana safar shaqo ay ku tageen deegaanada Timirshe, Xamure, Dhaqar Jaale, Geesaqabad iyo Barako oo dhamaantood ka tirsan deegaanada gobolka Bari. Waxa ciidanku ay u kurgaleen xaaladaha amniga oo ay ugu dambeysay Bilakoor iyagoo ka wacyigeliyay bulshada deegaanadaasi khataraha ay leeyihiin kooxaha nabadiidka ee Daacish iyo waliba kooxaha cadawga Soomaaliyeed. waxa ay ka geysteen ciidanku tabarucaad isxilqaan ah oo ay u garteen dadka deegaanka maadaama ay jirta abaar raagtay xilligan. Tabarucaadka ciidanku ay geeyeen deegaanka Timirshe waxaa ka mid ahaa shidaal loogu talagalay inay u adeegsadaan biyo dhaamiska. ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa mar walba garab taagan shacabka Soomaaliyeed waxayna u geystaan garab turid ah iyagoo kala qayb qaata xaaladaha adag. waxa ciidanku ay u mahadceliyeen dadka deegaanka oo la leh xilligan wada shaqayn baahsan. dhinaca kale ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa deegaanadaasi ka sameeyay howlgallo lagu baahsanayay kooxaha nabadiidka ee Daacish. waxa ciidanku ay mar walba ay garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyagoo gacan uga celiya cadawga halka gacanta kalena gargaarka ay uga qayb qaataan. waa soo dhaweynay waa noo yimaadeen waxaanu u mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadla guud leh mahadla gaarana ciddii wax ku qabata ama dee booqashada kuugu timaada baa ammaan mudan iyo mahadcelin waa u mahadcelinaynaa. hanti bay nagu wareejeen dhibtii iyo oonkii bay nala qaybsadeen 7 birmiil oo naafta ah iyo lacag bay nagu wareejeen aad bay u mahadsan yihiin. waxaanu leenahay adeegaasaad kala sii dhowaataan haddaan raxmad ilaahay noo shubin iyo roob wixii dambe oo naga maqan ama naga dhimanna waa ka sugaynaa. annagay maanta nala joogaan waanu u mahadcelinaynaa. ilaahay mahadiyaa ka gaadho madaxdooda maqan iyo madaxdooda joogta iyo dhammaan ciidanka BSF waa u mahadcelinaynaa waana ka guddoonnay maandheenu soo badiyana waa leenahay misna. howlgallada ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa mar walba diiradda saara dabargooynta iyo ka hortagga dhagaraha kooxaha cadawga ummadda Soomaaliyeed ee Daacish iyo waliba sidoo kale kooxaha kale ee nabadiidka. xoojinta nabadgelyada iyo ka hortagga khataraha iyo qorshayaasha argagixisada ayaa ku qotomay sidoo kale dhinaca kale howlgalkan ciidanka amniga Puntland ee BSF ay ku gaareen deegaanada fog ee gobolka Bari.